Ma ogtahay inta habraac ee foosto saliid ceyriin ahi marto ka hor inta aysan noqon tamarta aan maalin kasta isticmaalno? Foosto saliid ceyriin ah kuma soo gaarto dadka sidii ay dhulka uga soo baxday. Ka hor inta aysan faa'iido yeelan, waxaa la geliyaa munaarad weyn oo kala soocid ah, distillation tower, halkaas oo kulaylku u kala saaro qaybaha ku jira lakabyo kala duwan, mid kastana leeyahay ujeeddo u gaar ah. Waxa ugu horreeya ee kor u kaca waa gaaska batroolka, kaas oo markii dambe la cadaadiyo si uu u noqdo gaaska dareeraha ah ee guryaha badan lagu isticmaalo. Isla hoostiisa waxaa ku jira batroolka, gasolini, kaas oo ka dhigan laba eber wax soo saarka foostada, waana shidaalka dhaqaajiya inta badan baabuurta dunida. Wax yar oo ka sii hooseeya waxaa laga helaa saliidda loo adeegsado dildilaacinta, cracking oil, oo aan si badan loo xusin balse muhiim u ah samaynta balaastiga iyo kiimikooyinka. Kadib waxaa yimaada shidaalka diyaaradaha, jet fuel, kaas oo ka xasiloon batroolka caadiga ah, loona sameeyey inuu diyaaradaha ka shaqaysiiyo meelaha sare ee hawada. Qaybta shanaad waa naaftada, diesel, taas oo ka dhiganta ugu yaraan 3 eber foostada, kana shaqaysiisa gaadiidka waaweyn, qodayaasha, iyo mishiinada culus. Hoos waxaa ka sii xiga saliidda culus, heavy fuel oil, oo ah walax qaro weyn oo adag in la shido, balse tamar badan leh, isla markaana jaban, sidaas darteedna ah shidaalka ay isticmaalaan maraakiibta waaweyn ee badaha gudba. Kadib waxaa yimaada saliidda sifaynta iyo subkaynta, lubricating oil, oo ah maadada ka ilaalisa qaybaha matoorada inay isku xumaadaan isjiijiidka awgiis. Ugu dambayntiina, gunta hoose waxaa ku hadha daamurka, asphalt, oo ah walaxda madow ee lagu sameeyo wadooyinka aad maalin kasta ku socoto ama ku kaxayso gaadhiga. Hal foosto oo keliya. 8 badeeco oo gebi ahaanba kala duwan.